wararka lagu kalsoon yahay xaqiiqo ah qof gobolka Minnesota caan ka ahaa ayaa xabsiga loo taxaal waa kuma qofkaas waa wiil sharaf badnaa la yaqaanay wariye ahaa waa walaalkeen deeq darajo isagoo ka dhoofay airportka u socdo hooyadiisa xanuunsanaysa ayaa laga soo qabtay airportka wuxuuna hadda ku jiraa federal prison deeq darajo nin aan si fiican u aqaanay ayuu ahaa Soomaalidu warar badan bay isla dhex qaadaan been bay curiyaan anigu ma jecli qofka bini aadanka in been laga sheego sababtu deeq darajo ku xiran yahay iyo meesha wax ka khaldameen oo dhan ayaan idin sheegayaa ogaada hadaba maanta tadeeq lagu xiray dad badan bay ku soo socotaa dad badan oo is ogeyn ayay ku soo socotaa laakiin hadda markaa videoga dhageysataan qof walba oo dajabso meelaha aan ku tilmaamana garaac albaabada deeq darajo wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah ehlu salaad ah nin sharaf leh wariye ah qabiil iyo shakhsi nacayb iyo wax walba ka fog wuxuu ahaa deeq darajo wariyaha Universal TV ee gobolka Minnesota TV kalena uu ka shaqeynay deeq waxaan lagu xiray maxaa aniga aan ka ogahay Cabdixakiin ahaan deeq markii la qaybinayay arimahan raashinka ee la abalay gareynayay deeq wuxuu arkayay fursad furan oo lagu shaqaysan karo wuu abalay gareeyay deeq markuu abalay gareeyay oo uu doontay qabti ayaa ku dhacday iyadoo aan wax lacaga la siinin haddaba see ayaa lagu xiri karaa qof aan lacag la siinin taas inaan hadda idinka dhaadhiciyo ayaan meesha idinku soo fariistay dadkii organizationadan lahaa sida Sweet Amy Gerald oo kale ee laga abalay gareeyay dad badan oo waxa jira abalay gareeyay oo doontay markay abalay gareeyeen dadkii cuntadii bay qaar bixiyeen iyagii baaba qasaaro galay markay bixiyeen gadaal baa la idinka siinayaa baa la yiri magacoodii systemkiibu ku jiraa dhagihiina fura waryaara magacooda systemkiibu ku jiraa waa la diray lacagtii waa la soo diray lacagtii dadkan ma soo gaadhay may lacagtii waxaa dhexda ka qaatay agensigii ay ka abalay gareeyeen deeq ninaan aad iskugu dhownahay family friends aanu nahay xog badan aan u hayay Facebook live baan ku jiraa arrintii deeq baan ka hadlayaa waa ogahay I know okay dad badan ayaa doontay dadkii markay doonteen ay abalay gareeyeen qaar baa markay abalay gareeyeen fiiriyaya foomkoodii buuxiyeen wixii bay buuxiyeen agensigii bay u tageen 9 bilood qaar baa cunto qaybinayay shilin lacagan aan helin lacagtii waa soo dhacday lacagtii shakhsigan ma qaadanin agensigii la aamusay magaciisii qofkii inta ku jira waxaan garanayaa haddaba arrinta aan maanta aad uga naxsanahay gabdho aan aqaano oo waxaa jira 7 beri mise 6 beri iyagoo qaybinaya qabtii dhacday 6daas beri meel bay kiraysteen raashinkii bay iibiyeen waa soo qaateen jeedkooda isticmaaleen lacagtoodii waa soo dhacday oo agensigii baa la aamusay iyagina wixii waa ka baxeen ka warrama maanta waxaa la xiri doonaa oo soo socda dad badan oo iyagu
lacagtii inta lacagi ka maqan tahay location kireeyey oo yani waxay kireeyeen meeshii lagu qaymin lahaa waxay baygareeyeen shaqaalihii waxay bixiyeen cuntadii dad badan oo noocaasa soo socda dad badan oo khasaara ku dhacay ka warama adigoo intaa lacagtii bixisay wixii aan lagu siinin laguna xiray ka warama soomaaliya adigoo intaa lacagtii yani lagu xiray oo aan dambi gelin wax lacag aan dhicin deeq darajo walaalkeen ilaahay ha fududeeyo shakhsigan aad iyo aad maanta uga naxay deeq darajo maanta aad iyo aad baan uga naxay allah ha fududeeyo laakiin deeq wuu abalay gareeyey wax lacagana ma qaadan qof kasta oo la xidhay oon dembi lahayn waa la soo dayn doonaa laakiin intaan hadda lagu xidhin dhibaato iyo hirigna aadan gelin dhowr arrimood baan idin farayaa soomaaliya dhagaha furta waxaa jira wiilal badan iyo gabdho badan oo walaaladaya oo soomaaliyeed oo abalay gareeyay brogramka qof kastow adigaa maanta is-og meeshii aad ka abalay garaysay meeshii aad ka abalay garaysay qof kastow ada halo facebook live baan ku jiraa muqsaawaca qof kastow adigaa og meeshii aad ka abalay garaysay gabdhaha soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed iyo waalidiinta soomaaliyeedow waxaan idinka codsanayaa qof kastow maanta bax hadda waktigii waa dhacay ajensigii aad ku xidhnay qofkii aad ka abalay garaysay hostes qofkii aad ka abalay garaysay aad ajensigii u tag ajensigii u tag waxaad tidhaahdaa waraaqahaygii aan kaaga abalay gareeyey isii ina qor in aadan wax lacaga isiinin taas number one safiya aadan way xiran tahay walaal way xiran tahay ayagaan taas number one number two qof kasta oo abalay gareeyay brogramkaano waxaad tagaysaa looyarkaaga u tag qareenkaaga u tag la fadhiiso magacaagu inuu ku jiro inaad abalay garaysay u sheeg dokumentigii aad haysay u gee in aadan waxba qaadan shay qofoona qareenkiisa looyarkiisa yaan wax beena u sheegi looyarkaagu waxa uu la xidhiirayaa FBI-da waxa uu la xidhiirayaa qolada customka immigration iyo meel walba wuxuu soo baarayaa magacaagii inuu kilin yahay iyo magacaagii inuu wasaqaysan yahay waxaa marka macquul noqon karta in aad ka badbaadid in lagu arastagareeyo oo jeeba lagugu xidho marka aad tira looyarkaagii war anigu waxba ma qaadan okay ta labaad qof kasta oo intuu abalay gareeyey qof kasta oo intuu abalay gareeyey lacag aan la siinin isagu jeebkiisa isticmaalayay sida gabadhaan hadda idiin sheegayo kale 6 beri bay ku jirtay meel bay karaysay cuntadii bay iibisay shaqaalihii bay garaysay almost iyada waxaa ka baxay $20,000 dhulkeena gashay waa lagu xiray walaal qofkii safiya qofkan waxba dhicin waa lala talinayaa Soomaali baynu nahay qof kastow rasiidhadaadii aad cuntada ku iibisay rantiga jeegaad ku bixisay in aad jeebkaaga ka bixisay lacagtaasi meeshay kaa soo gashay markii hore qof walba sii diyaarso arrin kale oo ka daran baan idiin sheegayaa haddaba waalidiinta Soomaaliyeed ee waxba galabsanin waxaa jira qaar caruuroodu hodeen oo ay ku qorteen dadka beeshinka ah ee bildhinada dhaadheer degan dad waxaa jira caruuroodu hodeen ama qof sharcigooda yaqaanay oo dhulka la galay waxaan xalay idiin sheegay in gabadh unemployment qaadata oo magaaladan joogto oo caan oo la yaqaano daawud ana ku sharxi doona oo caan oo la yaqaano oo magaaladan joogta gabadh ay aamintay
ay walaal ka dhigatay oo ay meel ka wada shaqayn jireen oo iyadu shaqada geysay ayaa gabadhii kale markii shaqadii ka tagtay unemployment bay gabadhani dalbatay unemployment-kiiba muddo qaadanaysa qofta unemployment-ka qaadanaysa halkan kalena waxaaba lagu qaadanayaa jeeg waa lagu daldalanaya qofta waxaa samaysay waa xafiiskii aan idiin sheegayay wiilkii Minneapolis ee la xiri jiray program gaar ah ayaan qoftaas idinka samayn doonaa dad badan oo noocaas ah ayay qoftaasi damage garaysay damage-na ay ku soo wadaa gabdho badan oo ayuutooyinka la urursan jiray iyana waa ku soo socdaa war qof kastoo war Soomaali baynu nahay war yaara Soomaaliya dhagihiina furta war maanta dhiiqaynu ku wada jirnaa Soomaali community dhulkay galeen maanta adeer iyo awow ayayooyinkii baa la xiray oo xabsi maanta ku jira kama baxan family dhan ayaa maanta kulligood federal prison u socda lix qof oo walaal ah waa arkaysa hooyo iyo labadeeda caruur waa arkaysa hooyo iyo shan caruur waa soo socdaan hooyo iyo naag iyo ninkeedii iyo ciyaalka dhaleen waa soo socdaan culimo waa soo socotaa fanaan waa soo socdaa maanta dhiiqadii waa lagu wada jiraa laakiin ilaahay haynaga badbaadiyo dadka Soomaaliyeedow dadkii waxaan abalay gareeyo maanta fadhi idinma yaalo deeq darajo waxa lagu xiray wuu abalay gareeyay wuu bilaabay lacagtii lama siinin laakiin lacagtii waa lagu qaataa laga yaabaa qof kasta cadaalad iyo justice ayuu helayaa laakiin waa inaynu isbarxanaa fadhiga ka kaca hadeertadaas aan idinla hadlayo dadka Minnesota deganow qofkii abalay gareeyay qofkii 5 bari qaybiyay iyo qofkii 20 bari qaybiyay iyo qofkii ka badan qaybiyayba walaalayaal gacali xafiiska ka abalay garaysateen taga barinta subax marka waagu bariyo dokumentigiina idinkoo wata looyarkiina la tashada magaciina soo jeegareeya deeq darajo isagoo waxba isku ogeen hadduu wax cuni lahaa oo uu wax dhici lahaa uu ka mid ahaan lahaa dee isagoo laafyoonaya hooyadiisoo xanuunsanaysa oo Turkiga joogta ayuu rabay inuu u tago jaabad baa ku dhacday walaakiin maanta prison buu ku jiraa federal prison buu ku jiraa dadow Soomaaliyay qof kasta oo Soomaaliyeed isaga ayaa Soomaaliga kala dhibka gelinaya wardadow maanta fadhiga ka kaco please arrintaani waa arrin culus qof alla iyo qofkii abalay gareeyo maanta war kuma yaalo waxaa jira saan idiin sheegay dad 8 bilood qaybinayay cuntada xafiisku ma aha xafiiska Amy oo kaliya deeqa walaalo ma aha xafiiska Amy oo kaliya xafiisyadu waa badnaayeen ma ahayn way garanayaan dadka inta xafiis ee magaalada ka jirtay qof walba wuu garanayaa so far waa 3 xafiis mis afar mid kale lagu jiraa afar weeyaan marka Amy waa xiran tahay laakiin kuwii kale dadkii lahaa magaaladay joogaan dad 6 bilood wallahi qaybinayay oo lacag la siin baan dhahayga saar dad sanad qaybinayay oo jeebkooda isticmaalay oo shilin la siin baan arkay waryaara hooy war magiciini wuu galay lacagtiina waa lagu soo qaatay oo waa la qaatay kuwaas dhaxa qaatay la tagay dawladdiina waa ka soo baxday qofka lagu xirayaan waa adiga laakiin aakhirka waxa imaanaysa in marka la arko akoonkaagi in aad jeeg ay ku siiyeen organization jeeg uu ku siiyay aanay ku sarifin xageen ku sarifay jeegan xageen lagu sarifay akoonkaaga maalinta ku dhacdo ee ku sariftid waxa weeye dambiila tahay haddii aadan ku sarifin waxa weeye anigu waa abalay gareeyay waana lacagtiina layma siinin wax khalad ma sameeyno anaaba victim ahaa waxa fiir dhici doonta dad iyaga lacag ka maqan tahay oo jeebkooda isticmaalay in dawladdu ay hadhow iyaga markay arkaan dadkan inay victim yihiin wuxoodii la siiyo ayaa dhici doonta maybe ilaahay baaba laga yaabo subxaanahu wa tacaala way dhacaysaa way samaynayaan dawladdu haddii xaq kaa maqan yahay waxna aadan qaadan kaashkaagii isticmaashay rasiidhadii haysay waxaagii waa helaysaa laakiin ta hadda ugu muhiimsan waxa weeye maanta walaalkeen deeq darajo wariyaheenii caanka ahaa ayay ku dhacday Universal TV barintu aday kugu dhici karta
kartaa saa dambe aabbahaa bay ku dhici kartaa saa kun hooyadaa bay ku dhici kartaa waalidiinta beeshinka ee guryaha jooga laftooda arrintan qof kastoo waalidka ama adeerka ama aabbaha ka warhay soomaaliyey anigu maanta digniintaas waa idin soo gaarsiiyey barintana wax kale iga fira waa idin soo wada gudbinayaa tallaabadan qaado ilaahay subxaanahu watacaala walaalkan deeq darajo ha u soo fududeeyo run ahaantii aad baan uga naxay shaksi aad u fiican oo macaan oon qabyaalad aqoonin oo waladul xalaala ayuu ahaa waxaana waan iswada ogey dadku soomaalidu waa iswada jeeb ogyihiin deeq muusan ahayn dadkii fariiriqleeyey lacag u haystay ma jirin aynaw deeq si fiican baan u aqaanaa si fiican baan u aqaana waxaana say ku dhaceen xogtoodii waa soo hela wuu abalagareeyey ma qaadanin biliis soomaaliyey isbaraha waa ka baxaya masaajidka waa ka baxayaa baan dhahay masaajidkii oo socod maskaxda iga xir waa ka baxayaa baan dhahay facebook hadda live kan dhagaysta si fiican qof walba looyarkaagii u tag haddana qofkii aad ka abalagaraysay aad waa idin wada salaamaya dhammaantiin barnaamij gaar ah oo waxaa jira aan idiin soo wado oo gabadhaan idin leeyahay ani baloyman bay qaadanaysay iyadoo ani baloyman qaadata ayaa sharcigeeda lagu shaqaysanayay qoftii waxaad ku samaysay magaaladay joogtaa in adeerkeed oo la yaqaano oo minnesota dhan laga yaqaanay oo awowo la yidhahdo cusmaan maxamuuda ayay ka xidhay meeshii magaaladay kula joogtaa dad badan oo ayuutooyin gabdhaha ayuutooyin ku jireen ama shaqooyin ay oran jirto waa ingeenaya ama halkan aan wax ku qoraya oo dhan iyada lafteeda waa la waraysta markaa dadkii gabadhaas wax ku darsaday oo dhanow barnaamij baan idiin qabanaya waana wada garanaysaane idinka laftiinu sharciyadiinu soo baara meel kalena haka doonina waxaad ku quus qaadataan gabadha ani baloyminka iyadoo qaadanaysa sharcigeeda ay sanadkii xoogaaga ku biilgaraynaysa ku shaqaynaysay ku quus qaata markaa waa idin jeclahay allah idin xafido insha allah barito ayaa ballanteenu ay tahay iyo wixii war degdegee soo kordha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxaan barnaamijkeena inoogu khatimaa maanta ma jirto sweet amy gaalan kuma khatimayo maanta ma jirto madax baa furan kuma khatimayo maanta waxaasoo dhan kuma khatimayo maanta waxaan ku khatimayaa walaalkeen deeq darajo ilaahay subxaana watacaala gacantuu ku jiro ha ka soo saaro shaksi fiican buu ahaa xaqana allah ha soo caddeeyo